waxaa maanta halkan gogol loogu dhigay ama fanaaniinta kooxda nasiibbaan waxay u dhigeen gogol saaxiibtinimo walaalnimo faneed fanaanka da'da yar Catoosh Yare oo dhawaan dhibaato yar ka soo gaartay magaalada Muqdisho taasoo uu dulqaadan waayay mas'uulka ugu sareeyo YouTube-ka Saacid Xaraar Channel mudane Saacid Maxamed Gacal haddaba Saacid ayaan warbixin idinka sii doona wixii dhacay iyo sida uu ugu talagalay maanta nin oo dhib waa dhacay xaalna waa dhacay maadaama Catoosh Yare oo nin fanka ah ku jirta tahay kooxyo yaryar oo dhalinyaro ah oo heebteen sheegay oo 39 sheegay maadaama ay ku gafeen maadaama dadku u weynaa aan nahay inaan ka raali galino oon ka dhaqno wixii dib oo ku soo gaaray ayaan kaan codsanaa gogosha nabadeed waxaan kugu dhignay dhibaatadii ku gaartay si alla sida ku qanacdid inaan ku qancino maadaama ay magaceena ay ku dheeleen gabdha yaryar fanaaniinta nin fanaan adigoo ah TikTok leh oo shaqaysahayo gabdha 39 ahayn inay san kula kacan gabdhaha waa dhib ma leh yarka ushku ugu dhuftaan dhacnay anakana fanka ninka ugu weyn ahay banaadiriga dhigo koox kasta dhigo kooxda libaaxyada Daniel mas'uulka waxaan jeclaystay inaan ku qanacsado wax ala gogoshaan aan ku dhignay nabadda mid ka sii weyn inaan naga qaatid anakoo magaca 39 ku socono inaan naga raali ahaatid ayaa rabnaa aad abwaakal aad Saacid Xaraar waa baasay abtubay asana waa baasay horta waxaa la ninka ragga ah inta ilmaha ka soo jiido way ku dhacaan marka qabiil la sheegay horta waxaa jira dad badan oo qabiilka baata boonboonina wax weyn la tahay sida gogosha ay u dhigtay aday kooxdaada waa kaaga baad celinaya abwaamaya asagana waa u maad celinaya dhammaan bulshada Soomaaliyeed waa u maad celinaya aniga dhibkaas uu soo gaar laakiin dhib saas u weyn ma dadaa waxay ka dhigayeen aan isbitaal leelo orday oo tacbaan laga dhigay usha xataa si fiican igu dhici geeskaan wax yar iga gaartay meeshan waxaa ku sugnaa askar badan oo dharcad ah oo amni magaalada sugayay buuqa markuu dhacay oo iika ku soo baxeen xitaa dadka baangaday wata hadaa aan la tumi lahaa seala waaye dhibka aan diidanahay oo magacaas dhan inuu gaaro aan diidanahay oo meesha ka dhacay aan ku soo baxday maadaama TikTok haalada aan ka aragnay maadaama magacaas oo qiimo iyo sharaf leh Soomaalida xageeda ku leh oo qof fankana ka tirsan aan tahay waxaan kugu imaanin waa fan ma ogi maahan qabiil kugu imaanin waa nacasnimo wixii qabiil oo fan la iskugu dilo waa idab daro aniga waa ka tirsanahay kaasi wuxuu ahaa Catoosh Yare oo dhawaan dhibaato yar ka soo gaartay magaalada Muqdisho asoo maanta ka qanacsanna diyaar ku ah xarunta weyn ee beerta nabadda Catoosh waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad raali noqo dadweynaha maxaa u sheegi lahayd marka dadweynaha waxaa leeyahay raali waa ahay waana ku baasatiin aad iyo aad idinkaga baad celinayaa dadka Soomaaliyeed horta waxa ugu wanaagsan oo ka dabaqada kana aad iyo aad u baasayiin waxaasna wax walba way dhacaan waxaa la kugu dhacday qadar Allah waa loo qaata marka abwaaka iyo sidoo kale awmaya asagana waa maasayahay YouTube channel-ka Saacid Xaraar meel in la gaarsiiyo teamka fanaaniintana aad iyo aad u maasayiin dadka Soomaaliyeed waxaa leeyahay wax walba waxaa ka wanaagsan nabadda in la qaato Soomaaliya hadii maanta la dhoo hala aftirso kulli isku meel in la taga dhici karto dadkoo dhan waa walaalo aad iyo aad u baastay ajmay hadale barnaamijkan ugu talagalnay Catoosh Yare oo raali gelintii ku saabsanay aanu ku qabanay beerta nabadda waxaa ka soo qayb galeen fanaaniin badan aan soo koobi karin laakiin waxaad ka arki kartaan barnaamijka markaan soo dhigno haddii barnaamijkan oo bilaaban doonta daawasho waxaan idin leenahay Catoosh oo calooshii sanna maanta waa aragteen sida iyo daawasho waxaan